waxaan leenahay afkayga qolo ma tiid qabiil iyo reer ma tiid qof gaar kuu lihi ma jiro dadkaagaa qaybsamoo qoloba qolo diidantee adigu waxa tahay afqura. waxaa halkan ka soconaya akhris hingaadin iyo qorin. waa iskuul keliya u gaar ah afka iyo farta Soomaaliga mana lagu daraaseeyo afafka qalaad ama luqadaha kale ee ajaanibta. ardaydan waxay iskugu jiraan dad ah iyo dhalinyaro hadafkooduna waa barashada luqadda dalkeena hooyo iyo farqurxinta. waxay ka kala yimaadaan xaafado fogfog laakiin waxba uma arkaan oo yoolkooda ayaa ka weyn. waxay u soo kalahaan soo xaadiriyada xisadan oo bixiyo Ustaad Amiir waana maada muhiim u ah qof kasta oo Soomaali ah barashadeeda qoristeeda iyo joogteynteedaba. Ustaad Amiir oo ah baraha iskuulkan ayaa nooga warbixiyay hanaanka waxbarasho ee halkani iyo in dadka da'da ah iyo dumarkuba waxbarashada aysan ka niyad jabin si afka Soomaali loo badbaadiyo looga ilaaliyo muxuu ahaay dib u dhaca iyo burburka ku socda. aniga waxaan leeyahay waxbarashada horta lagama weynaada ee waa loo weynaada laakiin waxa dhacda oo hubaal oo xaqiiqo ah dadka guriga ugu soo tagaysa waxba aqoonin waliba dumarka u badan. marka waxaan leenahay waxbarashada gabdhaha ama ragga waliba hataa waxba aqoonin inay waxay aadaanba waxbarashada lagama weynaado waa loo weynaada. isku day waqti kasta oo ku sameeyay wax barata hooyo aqoon leh ayaa bulsho soo saari karta. waxaan leenahay afkayga qolo ma tiid qabiil iyo reer ma tiid qof gaar kuu lihi ma jiro dadkaagaa qaybsamoo qoloba qolo diidantee adigu waxa tahay afqura. sidoo kale qaar ka mid ardayda ayaan wax ka weydiinay waxa ay kaga dhigan tahay inay ku dadaalaan barashada afkeena hooyo iyo farqurxinta. والله wax badan ay ka caawinaysaa luqadda wax ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka wixiisa uu ku gudbin karo waaye ama qofka uu la hadlaayo uu ku fahmi karo waaye. luqadda waxyaabaha ugu badan oo qofka wadamada ay ku hormareen waa luqadda. wadamada hormaray macnaha luqadooda hormartay waaye. wallahi waxa ugu baaqi lahaa dadka aad ku deenaysaanba markaan oo kale soo mareen luqadooda hormariyeen si u hormaraan oo hormaraysan hadaa idinkana luqadiina hormarisaan. muhiimaddu waa inaad luqadaada hormarisaa. luqadaada hadaa hormarisana waxaa kaaga soo baxay meeshaas inaad tahay qof isku kalsoon oo hore u socon karo oo hormari karo. wallahi luqadda Soomaaliga inaad barto wax badan ay taraysaa waxay ka mid tahay macnaha haybadeeda ku jirto. wallahi ma dhihin karo ku liitaan xogaa waa iska mashquul badan yihiin maana liidasho ma jirto laakiin markii meelaha waxbarashada la joogo gabdhaha xagga waxbarashada ugu horeeyo. bismillaah magacaygu waa Cabdiwali waxaan dhigtaa iskuulka farqurxinta Soomaaliga oo lagu dhigo Soomaaliga farqurxinta bis oo lagu dhigo wax kale luqada. waxaana fartayda anigu aan halka u leeyahay inaan qurxiyo oon habeen ku sameeyo ayaan u imid meeshaan waana noo socotaa insha Allah. wuxuu ka duwan yahay asiga Soomaaliga bis uu gaar yahay fartaas luqada bis Soomaaliga la dhiso qoftu ay waxyabada u leedahay si fiican u barato intaas iskuulada kale uga duwan yahay. markaas awgeed aan u doortay inaan fartayda ka quruxsado. ma waxaan leeyahay luqadiina horta bal qurxiyo marka hore ka bacdi marka qurxisiin ka bacdi wixii kale u gudbaa. ma da'du ma weyna waa wacyi waqtiga jira ma ahane waa marka waxaan leeyahay kaniya qof weyn qof yarba waxbarashada kaniya jabinada. waxbarashada waa qofta nuxurkeeda iyo muhiimadeeda waaye.